dalkan Yemen waxa uu ka mid yahay wadamada Soomaalida aad u tahriibto inta ay nasiibka ugu yeelato inay ka soo badbaadaan mowjadaha badda u dhaxaysa labada dal oo boqolaal sanad walba ku nafwaayaan iyo markii ay Yemen soo gaaraan waxa ay la kulmaan rafaad iyo dhib weyn oo aan markii hore nolohooda ku jirin. qaarkood ayaa waxa soo gaara dhaawac halis ah, qaarka kalena naftooda ay ku waayaan. Soomaalida badankooda markay soo gaaraan Yemen kuma sii hakadaan oo waxay uga sii gudbaan wadanka ay dadkan dariska leeyihiin ee Sacuudiga iyo sidii baddaasi ugu gudbi lahaayeen iyadoo gaarida dalkaasi dhibaato weyn u maraan. kuwani waa dhalinyaro tahriibaya oo ka muuqda daal, rafaad, gaajo iyo haraad ayagoo u sii tahriibaya dalka Sacuudiga. wadanka kaga neebin in Sacuudiga galnamo qashan ku soo bixinaysa ugu joogina meel aan farsana oo ka soo ama waa gali karnaa hadda haween waa la hadli karaa laakiin uu Soomaaliya ma noqon. tani waa hooyo Soomaaliyeed oo ka soo badbaaday xabsi ka mid ah xabsiyada magafayaasha ee dalkan Yemen. mayna sheenay meel hare oo dad ka asiibana sheeni intii muslim ee walaal ee tahriibowna an ka sheegay in uu han tahriib bilasi arka aam Soomaali inuu arada ka aam wal amadi isu waa inuu arada aam oo doontu han iska deyn. ayaan la Saciid oo reer gaalkacyo ah wuxuu ku dhaawacmay dooni lagu duqeeyay xeebaha dalka Yemen 17 bishii saddexaad ee 2017 oo ku sugtay inuu ku nafwaayo markii ay diyaaradaha dagaalka Sacuudiga ay duqeeyeen ayagoo u socda dalka Suudaan. habeenkii oo dhan baa soo socday ilaa maalintii intii dambe deetana 12kii ama duhurkii markay salaadii duhur ee diyaaraduna soo dhaanagoo doonta saaran markaas waxaan ku qaylinaa waxaan naxnu Soomaaliyeed inta kor u istaagnay kabacdi waan iska soconay way naga tagtay safarkeena waan iska sii wadanay intii nasawirtay habeenkii markay hal saac oo yey duqeynta ku bilowday markaas waxaan ku bilowday gantaalada ay soo deysayaan meydad badan oo meydada waa arkay meeshaan si aanu aad meeshaan fadhiyay waxay ahayd dalka naaxudayaasha gabar baa gabdhahooda inta badan iska xanuunsay wadnaha laga qabtaa anoo dhabta saa ugu hayad oo ay mitagayso yaa baan saastan u istaagay aniga beerka laga qabtay baa xoogaa anna ma tagmaysan markaan kacay cabaar yar aan ka maqnaa iyaba nagu bilaaway rasaas kollay dhinacan fadhiyaan waxa fadhiyay gabdha gaari 20 oo gabadhaan ay ka mid ah hadda gacanta waxa uga dhacay laftirkeeda horta gabdhihii intooda badan majority way dhinteen waka anigana de lugtaas waxay gaareen cagta inta aqal qandowga ka hooseysa cagta intaas baa waxay gaareen ilaa laftu intaas ay xabadii la baxay. sidoo kale Maxamed Naafac oo ku dhaawacmay isla doontii la duqeeyay 17 bishii saddexaad 2017 oo ka soo badbaaday kuna waayay lugtiisii mid ka mid ah. meel baadiya waxaan joognay dhowr 10 casho 15 bish haddaan saddexaad lagu jiro habeen arbaca soo gelis waxa ka soo dhaaqnay 9 saac habeenimo imisa heelan markay waxaan 150 148 baahan habeen u yaryahay gaw badnaa imisa soo socotay habeenkii arbacada 9 saac markaan soo fuulnay doonta waaga noo bariyay subaxii arbacada dhan qoraxda noo taagnay
markuu waagi noo dimo habeenkii khamiis soo gelisay 5 saac adigoo ahayd 4 saac baa waxaan ugu bilaabay xabadahan wiilkani oo lagu magacaabo Maxamed Cabduqaadir waxa dhaawac halis ah ka soo gaaray oo uu ku gubtay una ku sigtay inuu naftiisa ku waayo markii gaari bas ah oo ay saarnaayeen dab qabsaday ayagoo tahriib ah oo doonayay inay gaaraan Sacuudiga baskii ay saarnaayeen ayaa dambas baaba ah noqday waxa isla goobtii ku nafwaayay dhowr qof oo isaga la socotay فمنو وإذا دو برسنا يعني كل قاعدة يعني نكان سكري سعبة يعني سكري مكسعبة يعني قاري كل كيسان شرايا لفول يعني قاري ما هو بلتين بشوية وأبوه يعني ما هو أبوه يعني بلتين قاثا كي دبالك فرقة قرقات مني كان سكري تيجي جماعة أصول كركل ما يعني سياس قاري كل كرحي فواتني دور فوضى لها يعني لاتي أفر لاتي ميلات عمل لها قاري شنا دمت يعني لا وعنا هذه تدوس دي ميلات عملوها qaali cabdi bari oo jalalaqsi ah waxa ka saarneed baskii gubtay qaali oo aad u gubatay jirkeedana meel fiyo uusan dabka ka gaarin lagu arag ayaa mar aan isbitaalka ku booqanay waxa ay noogu warantay sida ay wax u soo gaareen wuxuu nagu helay labadii gaari oo isla socotay marka xuduudka u dhownaay ee labadii gaari ay isqabsadeen isjiidhay hadda 5 ruux ku dhimatay 4 5 anagana waa dhaawacana Jawaahir Dhiciso oo reer Jowhar ah waxa ay ku dhaawacantay oo ku sigatay inay nafteeda ku weydo markii diyaaradaha dagaalka Sacuudiga ay duqeeyeen guri ay joogeen oo ku yaala xuduudda Yemen iyo Sacuudiga guriga la duqeeyay oo dad badan ku sugnaayeen ayaa waxa ka badbaaday oo kaliya Jawaahir iyo ninkii guriga lahaa dadka duqeynta ku nafwaayay waxa kamid ahaa laba gabdhood oo Soomaali ah Jawaahir la tahriibayay Allah u naxariiste labada gabdhood ayaa magacyadooda la oran jiray Nuur Xasan Kulmiye iyo Maryam Cabdi Madoobe Jawaahir waxa ay noo sheegtay in meydadka Soomaalida ay xuduudka daadsan yihiin sidoo kale waxay noo sheegtay in dhaawaca markii wax u soo gurmada oo badbaadiye waayaan ay eeyuhu ayagoo nafta ku dambaysa cunaan diyaardan soo markaas cabalkan joogan saddex Soomaali iyo 6 qofood oo baan soo gaadhay ma joogi karana halkan anaa madaxweyne xilkaaga wad ka gaabsay dee wax noo qabo naga saar halkan maanta adun waa madaxweyne si degdegana waxaan rabaa inaad uga soo jawaabtaan markaa waad aragtaa halka biyahaasan ka cabina wadankiina xanuuno badan baa ku jira xanuuno cudurro waan qaadi karnaa dawooyin ma haysano dadkayga dhaawaca halkaasay jiifaan wax laga xanuunsanaa ma jirto xafaayado halkaasay noo yaalaan weelkii daaqad yar baa laga soo dusiyaa nolol wax la dhahaa nolol ma haysano fatu maanta laga xamsto waa halkaas ku jiray oo ku dhimanaya meesha dagaal baana ka socda mas'uul u fadhiya safaaradda Soomaaliya mudane Taariq Maxamed Saalim ayaa noo sheegay safaaradda inay dadaal weyn u gashay sidii ay u joojin lahayd dhalinyarada tahriibta ah la soo habaabiyay anigu ku hadlaya afka safaaradda Soomaaliya ee Cadan dalka Yemen caasimada Beergaarka ee Cadan maalintii la furay safaaradda ilaa maanta safiirka oo bilaabay oo ah in qabanna ka hortagnaa dadka taajiraya ummadda Soomaalida waxaan soo daynay dad aad u tiro badan oo Soomaali ah oo laga ganacsaday
magafayaal gacanta u galeen dad badan ayaan kasoo fakinay dad badan way ku dhammaadeen oo ku dhinteen safiirka waxaa ka go-an dowladda soomaalida waxaa ka go-an qof kastoo soomaali ah meel kastoo lagu haysta inaan ka daba tagnaa aan kasoo badbaadinaa waxaan ka codsanaa shacabka soomaalida meel kasta ay joogaan dhibka uu leeyahay tahriibka waa la soconaa inay ummad badan nooga dhammaatay dhalinyaradan inay ku dhammaatay dad ilaa hadda lagu laayahay dhinteen nooleen aan la ogeyn meel ay ku dambeeyaan waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaalida meel kasta ay joogaan inay ka digtoonaadaan tahriib faa'iida ma laha tahriib dhibkiisuu wataa tahriib waa wax lagu baabao tahriib waatan baabi'isay dhalinyaradeenna alxamdulilah hadda dowlad ayaa noo dhalatay xoogan waddankeena ee noo kheyreedsan kana fiican meel kastoo adduunka maanta ka mid ah ilaahay wuxuu nagu munaystay dhul aad u wanaagsan jawi aad u wanaagsan ilaahay wuxuu naga dhigay ummad isjecel walaala waxaan iga codsanaynaa inaad ka waantoodaan tahriibka saa u malaysiin maaha in la soo baxo doon la soo raacay laga degay ama saxraa lagu lugay intaba maaha tahriibka waxaa daba soo baxo la dhahayo iibin bini aadan adigoo soo jeeda ayaa lagu iibsanaa aadan waxba ku ogeen aadan lug ku lahayn dad soomaali ah kuma tilmaami kara soomaali waxaan ku tilmaami karaa in la soomaaliyana bini aadan soomaali ah muwaadin soomaali lagama yaabo walaalkiis inuu iibiyaa oo gacanta u geliyaa nin magafa ah waxaan ku kacaya waa wax magaca soomaalida la wataan soomaali ahayn waxaan aragnay dad inta la iibiyey ayagana waxba ka ogeen loogu sheegay in waddankii loo celinayo aan waddankani loo sii wadin laga ridaayo suudaan iyo saxraaga liibiya keliyaha lagala baxayo beer lagala baxayo oo xibnihiisoo dhan la iibsanayo tahriibka waa dhimasho waxaa usoo diyaargarooday inaad intixaartaa aada isdishaa adiga qofku dilay ma laha adun baa isdilaya korkaada la galgabalaysanaya adoo soo jeedo korkaada la iibsana waa lees xooga waxyaala dhib badan oo bini aadamnimada ka baxsanaya tahriibka ay wadataa oon qof bini aadam ku fakirayn ilaa shaytaan ma ogyahay walaalayaalo tahriibka dhib uu leeyahay wallahi tahriibka dhib uu leeyahay safiirka habeen nama seexdo maalin nama seexdo ummaddaas unbuu daba ordaa meel kastoo soomaali lagu haysta naftiisoo halis u gelinaya axyaanan meelo waxaa jirta inay dowladda ay gacanta ay ku hayn inaan tagnaa ay nagu kalifaysaa nala soo sheego qof soomaali baa meeshaas lagu haystaa ama 10 soomaali baa meeshaas lagu haystaa ma dhaafi karaan nin walaalkeen oo soomaali ah oo nin lagu haysto waddan annaga aan kaaga dhownahay ama gobol annaga aan kaaga dhownahay waa inaan baxnay danta nagu kalifaysaa meesha aan tagnaa nafteena halis aan gelinaa qarash badan aan ku bixinaa inaan ciidan wadano meesha aan tagnaa inaan kusoo badbaadiyo walaalkayga soomaaliga ee la soo dhumiyey maskaxda laga soo xaday loogu soo sheekay janna ka horeyso waa daba soconaa si aad ku aragtaa horta way adag tahay bas waa daba soconaa lana waxa qarinaya waa soomaaliga naftigiisa qofka tahriibka qarinaya safiirka qarash badan aga baxay wuxuu geliyey habeenii maalin ku dhafraa saan u heli lahayn dadka tahriibayaasha waa daba soconaa way naga dhuumanayaan meel bay isku ororayaan mar dambe waxaa maqalnaa dadkii baa meeshaas lagu haystaa inaan u ordnay dadka lagu kaliftaa ugu horreynta markay soomaaliya ka soo baxaan waxay u soo baxaan inay carabaha yimaadaan ee carabaha kasii tahriibaan waxaa loogu sheekeeyaa marka waa lagu kaxaynayaa annaga ku kaxeynana keena ayagoon lacag dhiibin wax lacag laga rabo ma laha waa la kaxeeyaa meel baa lagu xariisaa sidii xoolihii oo kale dan dooni baa loo kale waxaa lahaa waddankiina ayaa niila celinaya jabuuti baa niila celinaya waddankiina ma aadi karno jabuuti ayaa niila celinayna doon baa lagu xaabiyaa sida ayaan dhaxays doon degtoo kale oo ku dhinteen 32 Soomaali ah waxaa la geeyaa suudaan ayaa lagu iibiyaa iyo liibiya intuu dhexayso xibnahooda la iibsadaa ayaga waxay haystaan in soomaali loo celinayo mar dambana waxaa loo sheegay liibiya nila wadaa qof wax weydiisanaya iska yar ilaa xibnahooda ayaa lakala iibsanaa sida xoolihii oo kale dowladdiima waa la kaashanaa dani ida ahaa lahayn waa nagu adkaa lahayd inaan soo badbaadina hal qof oo soomaali ah waa waddan wada hubaysan waa waddan dagaal ka socdo waa waddan aan waxba aan islaamin oo walaalahayna ah oo na garab taagan dowladdooda iyo shabagkoodaba aan walaala aan nahay dhiig naga dhexeeyo oo walaaltinimo naga dhexayso way nala dadaalaan way nala dagaalamaan way nala ordaan sidaan ku baabilahan wax tijaarada bini aadamka wax la yidhaahdo dowladda ma ka jiifta habeenii maalin inay soo badbaadaysaa ummaddeeda soomaalida dowladda waxay haysaa wacyigelin haysaa telefisyoonka dowladda soomaalida fiirisaa program badan waxaa laga suubiyey ka hadlaayo dhinaca tahriibka iyo dhibka uu leeyahay qarash badan ayaa dowladda aga baxo inay soo badbaadaysaa shacabka iyo mas-uulka ay ka tahay meel kasta adduunka ay kaga xiran yihiin ama lagu haysto
وماشي قدر العالم قد ما أنت ضدك وجوه استوى ليبيا دول ده مين كين ويكذب تكتر هل استهاي إن غير يوم أي تجار ماشي أصلا دول الصومال اللي هو هلا كشيء نكسر بالبعثة أمد Soomaalida tahriibta ayaa sidoo kale waxay halkan u sii maraan oo uga sii gudbaan dalka Suudaan waxa ayna halka uga sii gudbaan dalalka Liibiya iyo Masar bilahan ugu dambeeyay waxa dalka soo gaarayay mowjado dhalinyaro Soomaali ah oo doonayay inay u gudbaan dhanka Suudaan halkan Yurub uga sii baxaan dhalinyarada tahriibta ah la soo habaabiyay xuduudda u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga oo ilaa intii ay dagaalada dalkan ka bilaabmeen noqotay furan dagaal adag tahayna sidii loogu gudbi lahaa waxayna u muuqataa Soomaalidu inaysan weli ka qoorsan oo ay ku sii qulqulaan